بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ku lahayn shir bulshada rayidka ah iyo xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland ay qayb ka ahaayeen xilaalinta guud ee Puntland wasaaradda cadaaladda wasaaradda haweenka iyo bulshada qaybadeeda kala duwan looyaro dad kale oo aqoon u leh cilmigan qaybaha kala duwan ee bulshada aqoon-yahan runtii waxay qayb ka ahaa oo kale ayaguna shaybaarka sayniska ama Florence Labka oo asugu lafta qayb ka ah baaritaanada socda hawshan isu keentana waxay ahayd maantay in laga doodo barnaamijkan qaladka dhacay iyo dambiyadii hadda la geystay runtii oo aan leenahay marka koowaad inaan cambaaraynayno marka labaadna maanta kuma filla waa la cambaareeyay iyo waa laga murugooday waxa muhiimadu tahay in waxaan dib loogu noqon oo ay noqoto in wax laga qabto oo sababaha waxaan u soo noqonayaan iyo waxa keenaya in joogto wixii noqdaan oo aan isbedel keenin ma waxa keenay sharciga aan shaqeynin ma waxa keenay habacsanaan hay'adaha dawladda ma waxa keenay dadka oo aan wixii dhaqdhaqaaq bulshada rayidka ahaa iyo haweenkii iyo dhalinyarada iyo culimadii oo wacyigelintooda aysan shaqeynin waxa soo dhan doodooda waxa ka soo dhaxbaxay runtii in institutionada dawladdu ay ku soo ururtay in arrintaas aysan cidna uga hebaysan oo xagga fulinta shuruucda ku saabsan xadgudubka inay lagu suubinayo haweenka inay fuliyaan oo cidna looga hebaysan shuruuc dalka u yaala lagu shaqeeyo runtina waxay noogu soo dhawaatay si wanaagsan waxaana naga qayb ahaa dhammaan hay'adaha cadaaladda booliiskii qayb kastoo bulshada ka mid ah waxaan isleeyahay insha Allah inaan talaabo laga qaado guud ahaan dadka Soomaaliyeed talada la soo jeedo waxay dawladnimada la xoojiyo dawladnimada oo la ciifta inay sabab u tahay in hay'adaha dawladda loo daayo oo aan marka waxyaabaha dhacaan aan lala aadin dhaqan iyo xeer jajab aan lala aadin waxaana halka baaq wadan lafteeda oo tacsi iyo u tacsiinayna waalidiintii iyo qoyskii ka dhimata Caaisha iyo dhammaan dadka dhibka loo geysto dhan runtina waxay noqonaysaa arrin shariicada islaamka dambi ku ah arrimahaas oo dhan waxa gunaanadku yahay in sharciga la fuliyo oo dadka noocaasa wixii sharciyadan ka qabta lagu fuliyo aydan loo naxariisan aad ba mahadsantiin